waad ku mahadsantihiin bulshadiida in la gaarsiiyo wax kastoo adeega tani waxay la mid tahay un adeegga weliba kuwa ugu muhiimsan waayo khasaare badan baa dhaca sidaan ognahay dee dawladdu waxaa la sameeyaa dhaytadaas waxaad mooddaa hadda innaga inay inaga maqan tahay doorkaas anigu kulle intaan ogahay dhayto la leeyahay macnihii intaasoo gaari baa maaragtay ma garanaysaa crime ahaan loo waxeeyey loo maaragtay baabi'iyey intaasoo ma garanaysaa geerajo crime baa la qabtay intaasoo dee waxyaalo badan baa ma gartay sidaan wada ognahay meesha ka maqan marka mar haddii halkaas wax badan ay dhiman yihiin waxaad mooddaa in nin walba meel iska furtay oo dee dadkii aanu cidina cid u joojinayn waddankiina ma garanaysaa xoogaa taasi waxay ku noqotay runtii dhibku wuxuu ku dhacayaa un dadka shacabka ah waayo qofkii ma kala garanayo qofkii waxaan dee aqoonta u lahaa iyo qofkii dee aan aqoonta u lahayn isla markaa waxaan jirin qofkii hadduu wixii sii qaribo isla xisaabtan ka dambaynaya baan isna jirin waxaa la odhanayaa gaadhigaagii waanu eegnay marka horena waxaa laga yaabaa in 5-6 wax loo diro oo ku dayid ah waxaan soo gado intiiba marka qofkii qarashba u dhammaado gaadhigiiba uu lacag marayo maaragtay hadday dunto kuba dhow baa marka dambena laga yaabaa in khasaare weyni gaadhiba oo dee in wax maaragtay la yidhaahdo waxbaaba gubatay isla markaa meel uu si cararayo oo cid sharci anigu garan maayo soo qabanaya anigu waxaan xasuustaa dee adduunka sharciga geeris baan ku lahaa ingiriiska dee maan qaban karayn haddaad xitaa damcado inaad wax dhacdo ama aad wax baabiiso dee waxaa jira waa lagu xidhaya adiga waa lagu xidhaya qofku inuu soo dacweeyo oo lagu yidhaahdo timekiisii qarashkiisii waa in dee meeshii qofku wax ballan qaado inuu sameeyaa waxaan isleeyahay caqabadaha noocaasa ayaa meeshii laga faa'iidaystay deedna nin waliba waxa weeye meel buu iska qortay deedna dadkiina kala garan maayaan oo dadku qof akademig ahoo dee waxaan unbaa garan karaya dadkan kala saari kara marka horta runtii halka caqabad badan baa ku jira oo ay tahay in runtii dadka loo turo oo runtii qof miskiin ahoo dee gaari yar wato oo dhib ku dhacayo carruur ku qaadanaya baa laga yaabaa in intii yaraydna maaragtay dee lagaba sii gubo waa qof il ku soconayo la yidhi isha lagu qalay ishiina laga riday marka runtii dhibkaasi wuu jiraa dadkuna waa ka markhaatiyey bulshadu kombyuutar baa gubtay maskaxdii baa gubatay waxaan maskaxda lagu sheegaya waa kombyuutarka gaadhigu kombyuutar baa dhex yaalla waxaa la yidhaahdaa ECU waa electric component unit macnihi waxa weeye gaadhiga wixii mechaanicalka ahaa baa loo bedelay teknolojiyadu u bedeshay in haddeerto ay dee kombyuutarkaasi qabto adna kombyuutarka waxaa maskaxda lagu sheegaya waa kombyuutarkiyo xadhka badan baa soo galo gaadhigii kala wada xadhkahaasi marka xadhig waliba shaqu hayaa meel ka mid a gaadhiga waxaa weeye wax la yidhahdo sensories ayaa bahalkan ka qaadaya ma garanaysaa xadhigan ka qaadaya dabka sensorieskaasina actuators waxaa la yidhaahdo actuatorska sensorku waa askari iyo ninkii madaxda u ahaa amar bay kala qaadanayaan matalan haddii tusaale soo qaadano gaadhigu markuu meel ku dhaco sensor baa jira u qaabilsan oo kii beltiga wuxuu odhanayaa gaadhigii meel buu ku dhacay waxaa diraya wayarkan baa u qaabilsan baa diraya messagekan uu diraya actuatorkiina amar buu bixinaya wuxuu leeyahay safid qofkii markaa badbaadi buu leeyahay oo safe garee deedna waa kan boodaya sensorkii xadhiggii markaa sidiibuu ila amar baa la siiyey beltigii baa boodaya qofkii waa kan qabanaya waa wada noocaasoo miinan airbagii beltigii yani maaragtay marka gaadhigu waa wada sensaro noocaas marka maskaxdii meesha lagu sheegaya waa soxaf soomaali hadii la noqdo de waa maskaxdii gaadhiga kala waday waa ECU-gaas waa kombyuutarka guryaha inoo yaalla oo kale oo gaadhiga la dhex dhigay isagu marka dabkuma shaqeeyo meesha mushkiladdu ka taagantahay